بسم الله الرحمن الرحيم معاميشنا شرفت له كحران شركة ضل ريال استيت ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قعم فران كسو دوادا قلبي فران كسو دوادا أديك هفن أو إذن رالي قليا هذا ولا ليال سيدا نوغا براتين با وحا مانتا مركالة إذن سو قدبينينا قوري إيبه ولا ليال كسو دوادا daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha Allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah gurigan ee hadda kaamiradu hayso oo albaabkaas ganjeelka ah leh geedaha ay ku yaalaan waana guri maasha Allah meel aad iyo aad u fiican ku yaala laba wado ayuu leeyahay wado dhinacan ay ka martaa hadda waxaa arkaysaan wadadan dhinaca uu ka saaran yahay xogaa geed yahuud leh ka hor baxay guriga waa dhismayaashii hore balse dhismihiisa uu weli fiican yahay derbiyadiisa iyo qolalkiisa wax ka dunsan ma laha waa guri hadda lagu nool yahay xaafad ahaana xaafad fiican ku yaala dhinacaana wado weyn ayuu ka saaran yahay wadadan hadda aragtaan wadada kale aad tusay way ka weyn tahay laamiga ayayna toos uga dhacdaa ama wada laami ah ayay toos u gashaa laamigan uma dheera wax dhowr iyo 10 boos ah ayaa ka xiga oo kaliya ama wax xitaa 10 boos walaalayaal waxaa intaas u sii dheer in uu meel taag ah oo ku yaalo oo uusan god ahayn biyaha toos ayay uga baxayaan waana waxyaabaha dhulka laga fiiriyo meelaha ugu muhiimsan tusaale haddii aad hadda gurigan aad dabaq ama dhismo fillo ah oo balaaran ah ka dhisaysid waa korle ka soco mu baahno qodid ama dhulka aad loo sii qodo iyo in aad loo soo carro buuxiyo wadada waa uu ka sareeyaa walaalayaal soo dhawaada waxaan guda galayaa xogta gurigan iibka ah oo dhameystiran insha Allah tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo gurigani waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uu uga sii yaalaa degmada Kaaraan waxa uu uga sii yaalaa xaafadda Argentine oo kamid ah xaafadaha waaweyn ee degmada Kaaraan si gaar ah waxa uu ku yaalaa meel u dhaxayso hotelka Lafweyn iyo suuqa Argentine wadadan hadda hormarta ee albaabka guriga marta waxay toos u gashaa oo dhinacan waliba hadda kaamirada hayso suuqa Argentine qaybta qoryaha sidoo kale wadada kale ee ama wadadan dhinaca kale markii aado oo laamiga oo meesha hadda kaamirada hayso ah waxay toos u tagtaa laamiga hotel Lafweyn si kale hadda u dhig hotel Lafweyn marka ka timaado dhanka siis u soo socoto wadada ku xigto ayaa ka soo leexanay waxa ay dadka xaafadda u yaqaanaan ama loo yaqaanaa wadada farmashiyo Cabdullaahi Jeelle walaalayaal inaad tilmaan si fiican u fahanteen ayaa rajaynayaa xaafadda uu ku yaalo ama Argentine meesha ugu yaalo waa meelaha loogu sii jecel yahay wadooyinka waaweyn leh meel istiraatiiji ah suuqi u dhow laamiga u dhow sidoo kale waxaa ku dhow jidka Jamhuuriyo iyo isgooska Fagax wadada hadda dhinacan ka marta meesha derbiga ay tusaaye waxa ay toos u gashaa jidka Jamhuuriyo oo asagana aan ka fogeyn waxa xaafadan ama meesha uu ku yaalo caan ku tahay saraha maasha Allah gurigan toos ayuu ugu dhagan yahay saraha loo yaqaano saraha maasha Allah walaalayaal soo dhawaada haddii aan u guda galo xagga cabirka waxa uu ku fadhiyaa cabir ah 13 mitir iyo bar lagu dhuftay 13 mitir iyo bar waa dhulka loo yaqaano Treedishaha balaci dhirib wuxuu u yahay 13 mitir iyo bar barkaas waxa loogu tala galay dhismaha in loo reebo soo dhawaada waa cabir macquul ah oo hal guri oo waasac ah laga dhisi karo sida haddaba ka muuqato haddii loo baahdana laba nus laga dhigi karo ilaa 6 qol ayaa qaban karta guriga noocan ah walaalayaal haddii aan u gudbo xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo gurigan iibka ah waxa lagu rabaa 62,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah
وانا مع الدلال يهشيس قيمها وحاكفرن قرقرو وحي معقولة والذي كدمايا إن شاء الله تعالى بيع ماشو كبل الله ودكم مرة معضو ولا لي الهديات مغنتهين لمبردا واتسابك إيو لمبرك كلامنا جلسوا حريرة ففهم يعني كثير أنا كدبنا أنا قف وكيل صادر ستان مركز جوريجا لإذن سو أركو قيمها والذي شينايا وحي معقولة والذي كدما إن شاء الله تعالى تاسن وكود ذلنا ولا ليال هدي أن أجدبو حاجة wadooyinka sida hore idinku sheegaba waa laba jidle labadan wado ayaa dhinacyada kala marta wadadan weyn iyo wadada kale ee dhinacan u gudubta meesha waxa ku kulma afar wado kaamirada ama muuqaalka ayaa si fiican u arki kartaan ayaa filaaya haddii aan u gudbo dhanka oo u jeedo ama dhanka wadooyinka ay ka saaran yihiin walaalayaal gurigaani waa galbeed ujeed iyo koonfur ujeed dhankii la rabo ayaa albaabka laga dhigi karaa laakiin hadda waa koonfur ujeed albaabkiisa dhanka koonfureed ayaa laga sameeyay ama laga bajiyay walaalayaal haddii aan u gudbo xagga dukumentiga iyo sharciga gurigaani waxa uu leeyahay dukumenti saxan oo dhammaystiran kaas oo ah rasiid iyo sabarloog maxamed siyaad barre ah oo original ah sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah way u dhameystiran yihiin walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan dukumentiga idin geyno nootayadii aad dalbataan si la idinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumentiga insha Allah tacaala haddii aan nahay Dallas waxaan mar walba soo gudbinaa kaliya dukumentiyada saxan guryaha leh hala soo dhawaado halaga faa'iideysto haddii aan u gudbo xagga qolalka iyo waxa ka dhisan walaalayaal gurigaani waxa ka dhisan 3 qol oo 2 qol kamid ah isku furan tahay oo ah qol barso iyo qol gooni ah sidoo kale suuligii jikadii iyo waxa kale uu leeyahay baarkin aad u weyn oo intaasoo baawur ay geli karto sida hore idinku sheegay dhulka noocaan xitaa 2 qayb waa laga dhigi kare marka waxay ka dhigantaa asagoo nus kaliya ka dhisan waxa ku soo haray ama uu leeyahay baarkin weyn oo aad uga faa'iideysan karto siyaabo kala duwan walaalayaal haddii aan si kooban uga hadlo waxyaabaha idinka anfici kara gurigan wuxuu idinka anfici karaa kow deegaan inaad degtaan waa meel deegaan ku habboon sharaxaad kale fiican ama sharaxaad kale uma sii baahna suuqiya u dhow sidoo kale wuxuu idinka anfici karaa xagga kirada inaad inta kireysataan bishii lacag idinka soo gasho ama dhistaan oo lacag fiican markaas kusii kireysataan midda saddexaad qiimihiisa waa macquul meeshana waa istiraatiiji waxaa suuragal ah in mustaqbalka dhow lacag fara badan ay kugu kororto marka la soo dhawaado waa dhul ama guri ku habboon maalgashi deegaan iyo kiro intaba walaalayaal haddii aad dhul ama guri beeca ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira sidaan oo kale ayaa idinku beec geenaynaa insha Allah tacaala haddii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale nala soo xiriira waa idin heleynaa insha Allah tacaala ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allah tacaala sidoo kale Facebook follow inaga soo dhaha waa mahadsantihiin mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh